السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صالحين تمد كمد أي وحو لها نين أي در اللي أولا لوبين وحونا تاقي وحسو زيارين جري سند كي بمر حليدي وإيمان جري مر كمد أيو يمد وحو قرقراعي البابك وحال هذا شهويني وحي كتري وآي قف كيريد قرقراعيو وحو كيري وصاحب إلهي درتيس كل صاحبين كاغا وحانو يمد إنان صوب بغضو وحي كتري وحو دونين قريو إلهي مسو نبد عليه sidaas iyo sidaas allaha yeelo. asagoo albaabkii weli taagan ayaa waxaa soo muuqda ninkii saaxiibkiis ahaa asagoo xirmo qoryo u wado libaax. kadib ayuu u yimid wuuna salaamay. gurigii ayuu galay, qoryihii ayuu xareystay. kadib ayuu libaaxi ku yidhi iska tag, allaha ku barakeeyo. kadib ayuu saaxiibkiis ku yidhi soo gal. zawjadiisana xaalkeeda iska wadatay oo waa ay caytamaysay. ninkeedan shib ayuu ka ahaa, wax jawaab ahna uma celinaynin. ninkii booqashada ku yimid wuxuu la yaabay saaxiibkiis wax ku dhacayo iyo sida uu ugu sabrayo. sanadkii xigay markii la gaaray ayuu haddana booqasho ugu imaaday saaxiibkiis. albaabka ayuu gargaraacay. xaaskiis ayaa tiri waa ayo qofka albaabka garaacayo. wuxuu yidhi waa saaxiib ay ninkaaga dar alle u walaaloobeen. waxay tiri soo dhowaaw oo fadhiiso, wuu imaanayaa asagoo caafimaad qabo insha allah. saaxiibkii wuxuu la yaabay edabteeda. xogaay kadib ayaa waxaa yimid ninkii oo tunka qoryo ku wado. wuu salaamay, gudaha ayuu galay. saaxiibkiisana soo gal ayuu ku yidhi. xaaskiisa waxay keentay cunto aad u macaan. ninkii booqasheed ku yimid wuxuu la yaabay waxa uu arkay. markuu ka tegi ribay ayuu ku yidhi walaalkayow, sanadkii hore markaan imid waxaan la kulmay xaas aad kuwa caynaysay. kadibna waxaan arkay adigoo yimid oo libaax uu dhabarkiisa kuugu sidan qoryo asagoo kuu sakhiran. sanadkanna waxaan arkay xaas hadalkeeda u ahaa mid naxariis leh, wax caay ahna kama maqlin. haddana waxaan arkay adigoo yimid oo dhabarkaaga qoryo ku sido. wuxuu yidhi walaalkayow, waa ay dhimatay xaaskii hore. waan ku sabri jiray dabeecaddeeda iyo dhaqankeeda. anigana allah ayaa ii sakhiri libaaxa oo wuxuu ii soo qaadi jiray qoryaha. waxaana ku helay sabarkayga. markay geeriyootay ayaan guursaday haweeneydan wanaagsan. waxaana iga go-ay libaaxii ii khidmayn jiray. kadib ayaan u baahday inaan aniga dhabarkayga qoryaha ku qaado. sababtuna waxay tahay inaan helay haweeney barakaysan oo cibaado badan, anigana aan ku dareemay nolol raaxo leh.